رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن محمد أمين وألا باكلا سعطان channel كان أمين ميديا برو كسو دواذا مركله ما أنت وحندوني يا ولاليال أنا انكهضه حلقة ديني لباد أما بروجرام كيني لباد أما بارتي لباد أها وقتي جينا وعمري جينا سيدا نوغنها ولاليال ربي جينا دور ميل أيو قرآنك أو قدارتي وقتك وحاكمدا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا يغشى وحاكمدا والعصر إن الإنسان لفي خسر آيات كاس إي آيات كذا بدن أيو ربي جينا قدارتي تاسي معنى هيدنا وحيتها ولا ليال وقتك إنه مهم هاي هذا ما أنت أنك سيدن أو فائدة سنة أما سيدن أو استعمالنا وقتك رنهانتي وانكوك لدوانها dadka waa 4 nooc ilaa 5 nooc nooca koowaad ee dadka kamid waxa weeyaan dad waqtigooda ka faa'iideysto oo uga faa'iideysto ama aakhiro ama adduunyo oo waqtigooda dhan aan dayacin nooca labaad waxa weeyaan dad waqtigooda nusna qasaariyo oo beeldareeyo oo meel qaldan ku dhameeyo nusna ka faa'iideysta ama adduunyaha uga faa'iideystaan ama aakhiraha uga faa'iideystaan nooca saddexaad waxa weeyaan dad aan waqtigoodii in yar waxaan ka hayn inta kala beeldareeyo nooca afraad waxaa ka mid ah dad waqtigooda in yar beeldareeya in badanna ka faa'iideysto marka waxaa soo shaneeyo qayb kale oo marna waqtigii ka faa'iideysato marna waqtigii si la rab aan u isticmaalin run ahaantii haddaba adiga keebaa tahay waqtigaaga waa cimrigaaga rabbina subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku sheegay in uu beritana weydiin doono cimrigeena maadaama waqtiga dhanba uu yahay cimrigeena cimriga lagu sheegay waa waqti isku tagay bishii saacadihii waa wax isku tagay waqtigaas lagu leeyahay sanad waa bilo isku tagay bishii waa isbuucii isku tagay isbuucyadii waa yani maalmo isku tagay maalmihiina waa saacado isku tagay ama maalin isku tagtay saacadihiina waa daqiiqad isku tagay daqiiqadina waa sekoond isku tagay marka waqtigeena walaalayaal run ahaantii si sax ah uguma faa'iideysano oo macnaha ama aakhira aan ugu faa'iideysano ama arrin adduun oo na anfacayso aan ugu faa'iideysano marka qofku waxaa fiican inuu isxisaabiyo intaan la xisaabin nabigeena wuxuu noo sheegay maalinta yawm alqiyaama nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay maalinta yawm alqiyaama qof kasta wuxuu hortagayaa ilaahay hortiisa kamana tagayo halkaas ilaahay hortiisa ilaa uu ka jawaabo su'aalo 4 ah waxaa kamid ahayd waqtigiisii cimrigiisii meeshuu ku soo lumiyay ilaa la weydiiyo marka maanta hadii waqtigan walaalayaal aan ku luminay meel cidla ama la yacni iska sheeko iyo fadhi macna aan lahayn yani waan la weydiinaya waqtigan aad arkaysid waa wax muhiim ah oo nolosheeni inta nooshahay ka faa'iideyso oo ugu faa'iideyso wax ku anfacayo aakhiradaada iyo adduunyadaada yani walaal عمل في عن سميسو آخره وشقيسو الدنيا وشقيسو وقتها أكو عيارين وقتها يعني يوصل كل من ليل وحمهم رنانتي وان بدن كان إلا وصلنا إلا من رحم ربي إلا أن تقف إلهي ونحر استماهني أنت بدن أنت معناها أركيسد ضدك ووضع مشغول سيهين وقتي وضع سي صح أو ونكسن أو مفايدة سنة ولا ليال إلهي وقتي كان كوك فايدة سنة قديقو خاصة وقتي إمك لجوه أو بيشان بركة سنة قف وقتيس إنه كحساب تمو ده ور وقتيجي محان كل مي وقتي ما تمحان وقف إنه حسابي تصلنا هبين كنتوا زحنا قرر إنه حساب ما تمحان عمل وقبتي يعني وقتي ما أنت 8 ساعة صامرت ما 2 ساعة صامرت محان كفايدي محان الله هرتيس جيستي وحيلا سوينا كسن إنا ولا أسويدينه ده وحنا صبح حسو وقت جاني سيدنا وبيقامن متى قالوا حافي عن دي له جوجل سينا سي قرشيسيد بريت محا هدف على ده محا سماسن كرتا بريت محاد يعني آخرها أدونك هذا خرمرك جاري كرتا وحيلا وباهنا ولا ليال إن كفى إذا سنو رنهانتي ووح أرن مهمة وبدن كان يلو سنة هاي وباهن لس نفتي إذا كبلاو يضمان ولا لا يضامن أيو وقتي إنه كفى إذا سنو إنه وقف إذا سنة الصحة وآخرها إن أنفعسه ما الدنيا إن أنفعسه
oo hadhowti aanan ka shalayni doonin dhihin doonin allah saacadaas ayada ahayd haddaa wax khayr qabsan lahaa ama haddii wax aqare ama adduunkayga anfaca qabsan lahaa yani saani ma dhacdeen shalayto shay xaraan way dhaheen shalayto ma fiicno walaal haddaa fursad haysta intaa nooshahay maanta dad badan oo walaaladeen ah ayaa laga yaabay inay shalaynayaan yani dad intaa jirto oo dhihi lahaa maanta oo macnaha u baahnaan lahaa macnaha inay saacad kamid a la soo celiyo oo saacaddaas ay ku qaataan wax wanaagsan noloshooda wax ay ka bedelaan yani tii aakhire nolosha aakhire ee tii adduunba labadaba ay horumar ka gaaraan marka adiga walaal adiga daawanayo waqtigaaga bal fiiri adigu isxisaabi yani waxaan kuu sheegayo maaha wax iska maala yacni ma ahan waa wax ku anfici doono haddaad ogaaninna aakhira ogaan doontid ama adduunya intaa joogtid ogaan doontid allah walaalkay maalinta wuxuu ii sheegay wax wanaagsan ahayd ama aad leedahay ilaahay khayr ha siiyo walaalkay ii ducayn doonta insha allah waqtigayga iyo waqtigaaga waana la weydiin doonaa si rabbigeenna iyo rasuulkeena noo sheegeen marka walaalayaal waqtigeenna aynu ka faa'iidaysanno oo aan uga faa'iidaysanno wax wanaagsan uma adduunkeennan anfacayo ama aakhiradeennan anfacayo waa walaalkiin maxamed amiin oo inale waqtigeenna aan ka faa'iidaysanno yaanan ku ciyaarin waqtiga waana la weydiinayaa qof kasta ogow isxisaabi intaan lagu xisaabinin marka walaalayaal ma doonaya inaan ugu sii dheereeyo intaas ayaan doonaya nafteyda iyo tiinab inaan xasuusiyo insha allahu tacaala waxaan kaloo macnaha doonaya inaan kaga faa'iidaysto fursaddan in aan soo dhaweeyo walaalada channelkayga ku cusub soo dhawaada walaalayaal aad baan u mahadsantihiin waynu kala faa'idi doonnaa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan insha allahu meel kastoo joogno waqtigeena ka faa'iidaysano caafimaad iyo cimri dheerna ugu faa'iidaysan insha allahu tacaala waa walaalkiina marka ina leh nabad ahaada waqtigaada ka faa'iidayso isxisaabi inta aan lagu xisaabinin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu